السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada barashada luqada carabiga. casharkan waxaynu ku baranaynaa mudakar iyo mu'anas fi luqa alcarabiya. waxaan ku baranaynaa labka iyo dhediga. fadlan subscribe saar youtube channelkeena, sidoo kale nagala socdo facebook. magacyada waxaynu qayminaa ismu caaqil iyo ismu غير العاقل. ismu caaqilka waa wixii nool iyo wixii aan noolayn. mudakar iyo mu'anas waxay kala yihiin lab iyo dhadig. hadiyo jeer calaamadaha lagu gartaa waa ama midabka gaarka lagu kala gartaa waa dumarku waxay leeyihiin qadkan, ragguna khadka buluugga ah. aynu ku horeyno ismu almudakar, isamka labka ah. magacyada labka ah ee luqad carabigu ma laha qaab loo raaco. waxaa ka mid ah masjid. tanwiinta marmar calaamada waa lagu dhawaaqaa markay fasaxada tahay, laakiin marka kale caamiya ma luqada lagu hadlo laguma dhawaaqayo. masjidin kuga hadla masjid baad oranaysaa. sariir, sariirun waa sariirte. beyt ama beytun waa guri. magacyadan waa magacyo lablab. daalimun ama daalib. asaasun waa alaabtii guriga. qidaar ama qidaarun waa tareenka. daalibna waa ardayga. dhammaan waa magacyo lab. dajaaj digaagadii ama dooladii saa u taqaan. khubs waa rootiga. samaka waa kalluunka. dajaaj ismu mu'anas. ismu almu'anas muxuu yahay? al-ismu mu'anas waa ismiga magaca dhediga ah ama dumarka ah. ismu mu'anasku wuxuu ku dhammaadaa wuxuu leeyahay qaybo lagu garto. qaybta koowaad waxay ku dhammaataa oo inta ugu badana taa marbuuta ama taada yar. qaybta labaad waxay ku dhammaadaan alif maqsuura. qaybta saddexaad waxay ku dhammaataa alif mamduuda. waxaa kaloo jira magacyo kale oo la xidhiidha
dumarka sida magacyada dumarka iyo waxyaabaha la xiriira dumarka, qaybaha jidhka oo keli ah sida kuwa labada indhaha, laba indhood. haddii il keliya tahay waxay noqonaysaa magac dhadig. qaybta afraad waxay noqonaysaa magacyada wadamada qaarkood iyo magaalooyinka. qaybta shanaad magacyada ereyada maalinlaha ah. aynu ku horeyno magacyada ku dhammaada ta marbuuta. magacyada qaarkood oo dumarka ah waxay ku dhammaadaan ta marbuuta, waxaana loogu dhawaaqayaa ta marbuutatana kolba qaabka ereyga ku xidhmaysa u eg tahay. haddii ereyada ku xidhmayso waa tan, haddii kelida taagmaysana nooca weeye ta marbuuta ayaa la idhaha. waxaana loogu dhawaaqaa ta looguma dhawaaqo ee waxaa loogu dhawaaqayaa a. haddii shaqal raacana ama waxaa loogu dhawaaqayaa ta. magacyada dhadiga ah ee ta marbuuta ku dhammaada waxaa ka mid ah daaliba, waalida. daalibo ardayda, waalida oo ah waalid oo dumara. waxaa ka mid ah xaqiiba oo ah boosada baagan. sahra oo ah zahra waa ubaxa fiyooraha. hadii'a maxadiiqa waa jardiinada ama beerta yara guryaha iyo xaafadaha ku dhex taala, maaha talan beerto. fikra waa iyadna fikrad waana erey ah dhadig. sayaara iyadna baabuurka ah gaadhiga, waa isna erey dhadig ta marbuuta ku dhammaaday. madiina waa magaalada, iyadna ta marbuuta ku dhammaatay waa erey dhadig. waxa jira ereyaan aad u badnayn oo ku dhammaada ta marbuuta oo laba ama raga. ustaasa ama ustaada waa macaalimad. waraqa ma waraqa waa waraqad. tabiiba iyadna waa dhakhtarad.
dhammaan iyaguna waa eriyo dhadig taa marbuuto ku dhammaaday. salaa markanaha oo kale loogu dhawaaqayaa salaadiyo saaca oo ah saacadii. qurfa qurfe qurfa qurfe qol مطبخ عفوا غرفة وقل مقسم مدرسة ومدرسة مسكول دراجة بسكيلة جامعة جامعة وجامعة تا مربوطة كده معدن دمان مقعية داني وانا مقعية ددك waa kuwan ereyada ku dhamaada ta marbuuta ee aan ahayn magacyada ku dhamaada ta marbuuta ee aan ahayn kuwo dhadig ee kuwo lab. علماء 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 خليفة 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 خلافة aynu markana eegno alif maqsuura waa ku dhamaada. alif maqsuura kaasa la yidhaahdaa iyada we laakiin aan dhibcaha lahayn. alif maqsuura waxa ku dhamaada erayo ah dhadig waxaa ka mid ah magacyada caadiga ah salma kuwa baniaadamka oo kale layla layla bushra bushra munna muna dhammaantood waa magacyo dumar. magacyada dumarka kuwa ku dhamaada weeye alif maqsuura. kuwa labaad ee ku dhamaada iyaguna alif maqsuura ee magacyada dhadiga waxa ka mid ah kuwan haddii horeeyaan iyo haddii dambeeyaanba waxaa lagu dhawaaqayaa a kubra weyn kuwana magac dhadig ma dumar. suqra
yare kale tanweyne yare alif mamduuda kuwa ku dhamaada ee ah magacyada dhadig alif mamduuda waka codka ayuu dheereeyaa asmaa haddaad rabto waad odhan kartaa adna asmaa waad odhan kartaa laakiin marka lagu hadla asmaa la yidhaa umyaa oo ah qof dumara oo indhala حسناء تمرة أو قروح بدن بليرا سرقاء كده حركة تمر هذا كله واقع لكن هذه لقوا حتى سرقاء بدن صار بس كده نساء waxaan jeedaa caamiya markaad ku hadlayso sarqa xasna umya asma saas loogu dhawaaqaa magacyada dumarka asmaa annisaa magacyada dumarka haddii ay yihiin kuwa ajnabiya iyo kuwa carbeedba عفت عبير عفت عبير سمال أنيكا أسماء أمرين مارغريت جانيس كيتي مسرات منال نسمة آلية نوال نينا والأخيرا نينا magacyada oo dhan waa magacyo dumar magacyada la xiriira dumar bint gabadh hooyo walaa gabadha gabadh walaalo dhammaan magacyadana waa magacyo la xiriira dumar sidaas ayay ku yihiin magacyo dhadig
qeybaha jidhka labalabada ah oo keliya yid ama yadun waa gacan, caynun rijlan lug, dhammaantood iyaguna waa magac dhadig ah. aad ayay muhiim tahay luqadda carabiga inaynu baranno magacyada sida u kala baxayaan dhadig iyo labkooda, waayo waxay saameynayaan xataa ficilkii iyo sifihiiba. asmaa almudun walbuldaan, magacyada magaalooyinka iyo wadamada iyaguna waa magacyo dhadigkoodi. مصر، مصر، اليمن ويمن، المملكة العربية السعودية، إدنوا بقرطوية السعودية العربية، ومقعيو للديكونا المغرب وموروكو، إيطالية نو طليانيغا، باكستان iyaguna waa magacyo dhadig. maxay noo xigaa? faransa, isbaaniya, turkiya iyaguna waa magacyo. magacyada dabeecadda dabiiciga sida qoraxda, dhulka, dabka iyo dabaysha, dhammaantood iyaguna waa magacyo dhadig. shams وشمس، أرض وأرض، شمس وقرحدي، أرض ودلكي، نار وطبكي، ريح مريح وضبيشي، dhammaantood iyaguna waa magacyo dhadig. magacyada dhadiga markaynu baranayno wixii dhadiga hadhow waxay qaadanayaan sifo dhadiga. labkuna sifo laba ayuu qaadanaya. su-aal: magac dhadig ma u bedeli karnaa magac lab, ama cagsigeega magac lab ma u bedeli karnaa magac dhadig? jawaabtu waxay noqonaysaa haddii shuruudda laga helo. haddii magacu yahay magac la xiriira magacyada dadka baniaadamka haa waynu bedeli karnaa. tusaale ahaan magacyadan innaga oo ka saarayna taa marbuuta ama ku darayna taa marbuuta. tabiib waa magac lab, manina dhakhtar.
waxaynu ka dhigi karnaa dhakhtarad haddii aynu ku darno taa marbuuta tabiiba ayay noqonaysaa. muzakkar ama mudhakkar waa magac dhadig ama nin la xiriira shay dhadig. mu'annas waa shay mu'annasna waa shay waa lab. afan muzakkar baa ayaa ah mid lab, mu'annasna waa dhadig. tabiib tusaale tabiib waa magac lab, tabiiba waa magac dhadig. taalib waa arday, taaliba waa ardayad. sadiiq sadiiqa, saaxiib saaxiibad. muhandis muhandisad, muhandis waa injineerkii, muhandisa injineerad. qalam ma u bedeli karnaa magac dhadig? maya, waayo maaha magac bani aadam. qalam waa qalim. sidoo kale xaqiiba ma u bedeli karnaa? xaqiiba oo ahayd baagii boorsadii, ma u bedeli karnaa mid laba? maya. kitaabun, kitaab ma u bedeli karnaa magac? magaca dhadiga? jawaabtu maya, waa maya. taa marbuuta ku darno kitaaba inay noqonaysaa magac qalad weeyi, magac macno kale yeelanaysaa. tadriib, isku day erayadan inaad u bedesho kuwo dhadiga. mucallim waa mucallimkii. muwathaq shaqaalihii. kaatib waa qoraa. samiil qofka ninkaa wada shaqaysaan. mutarjim turjumaan. caamil shaqeeye. shaqaale. mudiir mudiirkana waa maareeyaha. muxaami waa lawyer qareen. jawaabta waxay noqonaysaa sidan. taa marbuuta ayaynu ku darnaa dhammaantood. mucallima ومعلمة. وصفة موصفة. كاتبة. زميلة. مترجمة. معلمة. مديرة. محامية. مركلة نكون غنى معلمة أدي لغة مركز لغة الله مفصحى ويكتغام تونتا وحرورنا يا معلمة أكلية نقصة موظفة سلوك لا ما تنسى ولا يتهجر حركة قدام بيسا بالله. فضلا هاي اللابين